السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan mahadle marka hore Ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala. marka labaad waxaan aad ugu mahad celinayaa saaxiibkay engineer Cabdixafiid Xuseen Cigaal Mr. Tufast oo bixiyay. haddii aan su'aasha ku soo dhawaado magacaygu Adeeq Axmed Nuur ama Adeeq Bangaali waxaan ku soo koray ku barbaaray waxaan ku soo bartay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco. عند دكتوري دحية كي هوسية كي دحية كل مش هراين سكرتيري وحن كبحي كدرلايت هاي سكول وحان هالكنيمي BD لو بدك نيجي لحيتون كي بالشافرات وحان شاعد بالعبي بشي سديدات وحان دميي لو بدك كون يلا بعتنكها أغسطس 17 كي دي بندميي والله يدعون كي ugu yaabka badnaa BD-ga Soomara horta BD markii hore tayadaas ka dhibaato midhan iyo yaab midhana oo qofka joogun baa ka warrami karo garanaya inay meeshu waxay u samaysan tahay yaab bay u samaysan tahay haddii waxyaabaha dhacdooyinka ugu yaabka badan aan soo qaato waxa kamid ah had iyo goor markay mudaharaadadu ka dhacayaan wadanka system buu leeyahay ciidamadiisa amniga wax walba u dhameystiran marka misalan oo kale meel dhaweyd qof baa dhintay بس بعد شيء أرضي بود شيء طب أرضي ده مدهرات أي أرضي ده مركز مدهرات أيين مقالة عاصمة دوران ويكال حدا مركز يوجبوك يغير يهرب شداي أنت بدنا عدم يسمينين لكن واحد يسميني حتى ودوين كي ترافق كدي تاجنا هذا أي كلو وريجين وليه يرى أنت كلو وريجان أي يجو ودوين كيستاجين ومعمولين ودن كمعمولين مقالة ترافيكيدii gawadhida ay maamulayeen waxa marka aad uga yaaba way badee askartii way u daayeen waa caadi laakiin population-kii dadkii magaalada joogay laftoodii ayaa aqbalay oo wuxuu uu ku yiraahdo ku istaagaya gaarigii haduu ku soco uu soconaya inagu waxaan arki jiray in askariga iyo qofka systemka ku haya la ixtiraamo oo xaq wadankeena iyo kale oo qofka systemka ku haya police ama askari ha noqday dawladda ka tirsan ayuuna ixtiraamtooda wixii maamulku ku yiraahday amara aad qaadato laakiin qof shacaba oo dadkii la doortay ama maamulka ay ciidamada ahaadaan inta laga wareegay maamulkii qof shacab uu kala wareegay oo waliba kii shacabka ay kalena uu taageerayo oo wuxuu ku yiraahday qabo uu qabanayo heede waran aad u yeelaya bilan weedho Soomaalida ka dhicin arinta kale iyaduna aabka oo la yaab kale waxa weeye aan ku arkay wadankan population-ka lama fidin dawladnimada lama fidin marka dadkoo dhan waxay isugu yimaadaan caasimadda isugu yimaadaan caasimadda marka la soo wado marka caasimadda 30 milyan oo qoray qaadi kartaa dadka badan 30 milyan baa ku nool 40 milyan dad ku dhow haddana ka badnaynba ayaa u soo shaqo tago yimaada oo gobolada uga yimaada dadka magaalada wax noqonaysa jaam nafta ka baxaysa marka istaayid yara bax oo meel ka soo yiraahday alaab ka soo iibsan jirta ilaa saacad loo soconayo waxa ku qaadanaysaa inaad u socoto 4 saacadood 5 saacadood ilaa 6 saacadood 6 saacadood argeysi barxa loo kala socdaa iyo inta soo jirta kowde marka tacaad la yaabina waxa weeye waa population-ka badidiisa iyo waxan koori iyo jaamka iyo dhibaatada Bangladesh ka jirta iyaduna arrin aad u la yaabay ayay wallahi wadankan horta qofka jooga waayihiisa iyo wacyiga ka jira uu garanaya hadii goorna waxa muhiim ah qofku horto inuu waqtigiisa ku xisaabtamo waqtigiisa markuu ku xisaabtamo qof horta guushiisa uu gaaray ardayda Soomaalida ka joogta waxaan kula talin lahaa qofku hamiyada iyo hamigu u yimi dalkeennii ma dalkani dalkeennii ma ka wadanimi dhulkii Soomaalida laga wada yimi dhulkana la yimi qofku waxa weeye wixii halkan u yimi haade inaanay kaga darsoomin ama aanay caqabadaha nolosha jira haade inuu garan waayo aanay ku kalifin waxaan la muhiimadii aad halkan u timi waa inaad yoolkeedii gaadho oo aad ka mandhi dhalisto waa waajib haddii kale yaadhow qofku markuu waqtigii oo tagay oo aanu gaadhayn u arko
waqtigu waayo uu soconayaa waqtigu lama joojin karo marka haddii aad fursadda aad haysato aad maanta ka faa'iidaysan kari weydo dhibaato badan bay ku noqonaysaa talabaadna aan kula dardaarmi lahayn waxa weeye Soomaalidu day halkan markaan wada joogno Soomaali baa laynoo yaqaanaa laynoo yaqaan hebel gobol buu ka yimi hebelkaas ka yimi hebelkaas ka yimi qofka Soomaaliga ah ee halkan joogaana de wuxuu matalayaa ama uu de qof loo qaadanaya oo sharaftoodii sida dadkii Soomaalida ah ee kale ee dhulkii joogay marka haddii aad hagaajisan dhulkii Soomaaliyeed dadkii joogay haade ayaad hagaajiso waxa loo Soomaalidu waa dad wanaagsan haddii aad noqoto qof qariban oo de waxa loo oranayaa qofkani Soomaalida oo dhan baa markaa de loo nisbeynaya xumaanta aad samaysay ayaa loo nisbeynaya marka dadkeenu waa dad dhaqan wanaagsan waa dad qable waa dad ilbaxa marka waxa loo baahan yahay intaad isku dirsatid oo wadanka la jaan qaadid oo dhaqankaaga iyo Soomaalinimada adoo ilaalinayana waxyaabaha xumaanta inaad ka fogaatid oo adiga qofka shakhsi ahaan laftiisa xataa aad bay ugu wanaagsan tahay inta san kula talina Soomaalida diyaar baan والله horta buugaag badan baan akhriyay waliba buugaagtan aad ka u jecelahay waxaan aad ka u jecelahay buugaagta taariikhda iyo history-ga ka sheekeeya iyo kuwa engineering-ka ah oo fiilkayga engineering-ka hadaan ku horeeyo waxaan u jecelahay dhowr buug baan taaban karaa oo buug la yiraahdo Metal Power System-ka iyo Alexander Electrical Circuit-ka buugaagtan aad ka u jecelahay tan oo akhriyo ayay ka mid yihiin buugaagta buug kale oo aan aad u jecelahay isaguna jira oo Taron nin leeyahay oo qoray iyo nin leeyahay James oo leeyahay Why Nation Feel waan xogaa ka akhriyay maan dhamayn laakiin in badan baan ka akhriyay haddii aan noqon lahaa madaxweyne shaqo ugu horeeyay ee wax ka bedeli lahaa waxa weeye waa musuqmaasuqa ayaan wax ka bedelay shay ugu horeeya wax ka qaban lahaa musuqmaasuqa iyo cadaaladana wax ka qaban lahaa aysaashaas oo yara badan tahay aad badan tagtay qofka markuu la naftiisa leeyahay wax ku qeex oo yara badan tahay laakiin saddex wax hadii aan ku qeexo naftayda waxaan ahay qof alla ka cabsi badan baan ahay waxaan ahay qof aan dadka dhibin waan dhibaato badnayn waxaan ahay qof bulshada kolley la jaan qaadi karan waana hubigaygu waxa weeyaan sports imka ma ciyaaro waxaan ahay ciyaartooyda cuslaatay baan ka mid ahay laakiin daawashadeeda aad i xiisa geliso aan aad u jecel والله نورشو هدي أي نقول لها بوك وحنو قدر لا بوك هالجن بانو قدر وأيو نورشو وحوي ويستراكر وهالجن هالجن بانو قدر لا بوك عوان والله هذا صور يسيو تريد يجون أكسنيد قف يسيو ارتوى والدكي مرة والله يقول دردارمان الله كعبسك يقول دردارمان إن الله يكبره إن الله يكحنا ذو إن واجبات كده إسلامي أن قلتو واحد كستاوي واحد يقول هذا مركع ويكوفوا أنا يان ترى اللي يقصي ولي بدنا مرقرة ما الله ما هو صدق معها مر ولا أنا وده هذا النبأ تأسي يقصي يعني كرهان هو يضي لا يكره الله هذا مر ولا تأسي يقصي لسه الله كعبس جاي أرض يقعد تطارنته والله تلحن أو مقال كان أوران كان تلحن بالليسو شيء ما قرنايو لكن dadka qaar baa waxay qoranayaan waxbarashada iska daa oo maana deena iska shaqeysatid oo deena wax barato inta soo dhun aad wax barato way dheer tahay inaad iska shaqeysataa ka dhow qaar badan tahriib bay gula taliyeen oo inaan tahriibo oo taabiro dadweynuhu ugu xuma kale aan filayaa inay hayaan tahriibku wax ma aha wax saqeeyo ma aha in qofku taabiro naftiisa mahalka geliya waxaan filayaa inay tahay talo xun inay tahay waan filayaa kulli qaar kalena way jiraan laakiin kuwaas ma kulli ma ka xasuustaa والله دكتاتور ما تشعلي aniga saxaantayda dictator buu uma sameysani haddaan dictator rado waxaan jeclaan lahaa shariicada islaamka ayaan number 1 ka dhigi lahaa inay dadku ku dhaqmaan number 1 ayaan ugu dhigi lahaa inay ka dhaqmaan waayo waan nasteexo dadkan u nasteexayn lahaa mustaqbalka waxaan jeclaan lahaa haddii ilaahay ka dhaweena ku noolaado London
كل ده واحد جعل عندك ميل إسكا فريستان ومية جعلنا ميل إسكا فريستان لكن مستقبل كمان جعله هنا نكون نولادو لندن حنكروا عادو جعله مقالة إذا بروحه هنا نكون نولادو عاد بني دلف جدول جعله هاي والله ميلا بدن بان وارن بوقدي oo ay kamid tahay dalkii oo kale waxaan ka xusi karaa sheekh baan booqday aad iyo aad u qurux badan waxaan ku tali jiray daalo maan booqan laakiin waxaan jeclahay dalafteeda booqday laakiin meelaha ugu qurux badan aan ka booqday ee aan tagay goob joog ahaa waxa kamid ah sheekh oo kale aad bay qurux badnayd halkan waxaan ka xusi karaa xeebta ugu dheer adduunka Cox's Bazar وأنا ذي مدة قاطي لا تمني عشان شوقي أيام إذا لفت هذا حكم كحوس كلا هذه هذا قرح بدنيد هذه أنا مقعد بدلي لها دير ورنا مقعد كلا كبدلو نوع عاوز شعلان لها إنكستو نوع هاي لورين تري لا ينحرس لورين تري محمد دون الله مانشستر يونايتد برتغال كريستيانو رونالدو BMW Black كوي هرني حنو شعلها من حريص محمد موجي يو مقول ما وجهها كوي طنبة حنو شعلها هي حنا سعيد بيك يهون عبد الرحمن لباح كلونك بلاي ستيشن وحان وتبول وركيو يهول وركبا فلان بدن عن حسيه كجيره لكن كي ugu dambeeyay kuwii hore hadii laga yimaado kii ugu dambeeyay oo kale waxaan aad kii serious ka ahaa moneyhistiga ayaa aad aan u jeclaa muddadii dambe filmantan daawanay intii ugu dambeysay Messi New York Real Madrid Nike CNN Africa صبح كافيه شاورما خبرات ايفون تركيش ايرلاين ورعو تاموندي waxaan aad ugu mahadnaqayaa saaxiibkay Cabdixaafid Xuseen Cigaal oo naanistiisa inuu bixiyay waxa qoraba ku soo sheegay Mr. Too Fast oo tan Too Fast ka sheegay kulay qasta dheer bay qaadanaysaa oo waqti bay u baahan tahay laakiin waa nin degdeg badan weeye wuxuu jecel yahay wax walba hawluhu inuu degdeg ku dhameeyo jecel nin hard worker aad baan ugu mahad celinayaa khayr badan baan insha Allah idin sheegayaa aad iyo aad waan salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh